waxaan challenge uga dirayaa dhalinyarta kow liicaato uu ku xigo CK uu ku xigo Dirisle Cabdi dhalinyarta saddexda marka ninba saddexa ugu sii gudbiyo saasaan iskugu gudbin kareen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقع فوتبول شو إذن لا مركز سود هذا وان في عنا نجو وحرجينا يذكرون الناس ذو كله في عنتين ما أنت واحد جعلها هاي برنامج شير وحساسية إن كهالله وأنا نقول تلقى لين channel كي جنين وكبها واي channel كي جوه نقول تلقى ليون بعض سبورتس كا reaction كي وحيابها بالشدة أنت بدن رلير كلا كهذا شيء ويوتيوبر أنا برنامج كي جوه حاون time yar inaan geliyo ciyaaraha iyo waxaas maadaama uu sportsku yahay waxyaabaha ugu badan inaan xiiseeyo personally marka nolosheeda kale laga yimaado marka maxay igu kalifay maanta inaan barnaamijkan ka hadlo ku soo daro showgayga or showyaanan odhanayna dhinacam waxa ii soo kalifay waxaan qaadan kari waaye ilaahay ka jisaysiiye waxyaabo badan horta kamaan arag anigu videoga dhammaystiranna maan arag video waxaan daawaday walaalkeen liicaato soo dhigay oo ka hadlayo hooyo doonaysa YouTube inay samaysato si ay ilmaheeda bariiska ugala soo baxdo marka videoga dhammaystiran maan arkin iyadu leedahay laakiin inta yar aan ka arkay videoga hooyo ooyeysa oo le meeshii aan islahaa bariiska ilmahaaga uga soo saar Soomaaliya i garab istaago waxay la qabtay maanta laakiin waxay isdhahay noloshaada bini aadan u baahanaysid shaqo hadaadan haysan noloshaada YouTube-kaas la sheegay in bariis oo leeyahay waxaan niyeysanahay in ilmaha ku korsan doono oo aan aniga ka shaqaysin doono YouTube-kayga oo aniga laakiin dad badan soo qaatay Soomaalida waxa yani isku naxariis maahan Soomaalida dadka qalbiyadooda isku mid maahan dadka badan soo qaatay magacyadooda iyo sawiradooda inta soo saaray waxa rajeenay way og yihiin shuruudaha YouTube-ka laba shuruud waa buuxi shuruud saddexaad ay dhiman marka waan kan jaway waayo maalmo yar ka dhiman bis maalmadaas shuruud kore u kacaysa hala dhahay shuruud saddexaad hadii maalmaha gudaheeda lagu sameeyay waayo ilaa haddana dadka jawaabo kama haye marka hadal wuxuu ka dhawaajiyay walaalkeen liicaato oranaya haddaynu maanta 1 milyan oo subscriber siino naxam hooyadaas meeshay doonayso ma gaarayso waxba uma tarayso waqtigan xaadirka way waxyaabo badan oo meesha ka eegay baa waxa kamid ahaa fikrado hooyo way keeni kartaa fikrado halkaasi waxaan leeyahay naxam I don't think inay dhibaato ku noqonayso maadaama niyadeeda ku soo dhacday in YouTube keenta laakiin waxa kale uu ka dhawaajiyay timing because qofki time buu u baahan yahay iyo wixii uu qabanayay iyo hawshii qof intaas oo ilmoodu daba cararayo YouTube-ka intaad edit gareynayso kaliya baciida ka badan intaad wax duubayso marka waa wax insha Allah rajeynayno inay kaasina uu qabsoomo aan leeyahay dadka garab istaago subscribe-ka siiyo iyo wixii aad samayn kartaan oo dhan laakiin walaalkeen wuxuu dhahay in walaasheen wax u tarno hooyada Soomaaliyeed in wax gaarsiino nacmeel ay bariiskeeda kala soo baxday inuu sameeyno deetna marka wixii dambe iyadu isku dayda waa YouTube-ki time buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan hatta subscriber maanta hadii lagu siiyo idea hatta la timaado maaha wax brito la lacag ku soo dhacayso marka balkan YouTube-kan qof possible soo kala dhalinyartan badan meesha isticmaalaysa waxa laga yaabaa qaarkood inaan lacag soo gelin qaarkood inay time ki geliyeen shaqo ka dhigteen oo time-kooga oo dhan ay YouTube-ka geliyaan nin single oo time-kiisa oo dhan geliyaan ba inaan single time-keeda oo dhan gelisay way kula soo bixi karaysaa wixii way isbedelayaayo inna waxay ka shaqeynaysaa fikrad inna wuxuu ka shaqeynayaa intuu idea keeni lahaa nacam wixii oo dhan time bay ka dhigteen oo qof full time shaqeynaya nafsiyan anu haddaan ka hadlo sportsku waxaan 24 saacadood ka sheekeeyo markaan jecelahay topic kale ee nolosha ka duwan inaan ka hadlo shakhsiyan waxaan u samaystay YouTube waxaan dhalinyarta kala sheekaysanayna inuu ka sheekeeyo marka maaha waxaan bariiskayga kala soo baxaan u samaystay alxamdulillah waxa bariiskayga meel kale kala soo baxaa qof shaqadeeda kale ka badan taanay qofna ma diiday lacag YouTube uga soo baxday iyadan laakiin the only thing maanta aan halkan doonayo 2 daqiiqo inaan ka qaato waxa weeyaan naam qof kasta oo Soomaaliya ku ilaahay u nimceeyay family-googa alxamdulillah ilaahay u sii siyaadiyo
laakiin in badanoo waxaa jirta nolol adag kusoo kortay maantana meel fiican taagan. intaasba qof soo garab istaagay bay leeyihiin iyo in ilaahoogu si kaloo aan iyagu ogeyn uu caawiyey. anugu shakhsiyan naftayda haddaan ka hadlo agoon baan ahaa, saasoo kale aan kusoo koray. adhowno walaashaa ninkeedii inuu geeriyooday iyo inuu nool yahay, waxaan rajeynaya inuu nool yahay, ilahay wax barakaysana siiyo. laakiin nolol adag waan soo maray. de hooyaana ila soo martay oo ila dadaalaysay. nolol adagoo 3 waqti hal waqti wax la cunay, sometimes aan waxba la cunayno, wejiga inta lagu maydho lagu ornay saliid wejiga marso oo banaanka u baxa. naxam dadku yana kaa garanayna inaad waxba soo cunin. qof soo maro unbaa garanaya naxam kuleylka leedahay hooyada ilinteedu. waana adagta in lagu daawado hooyo ilmeynaysa. anuu shakhsiyan miyihii waana first time waxaan oo kale ka hadlayo youtube-kayga sportsman ka sheekeynayay. shakhsiyan anugu waxaan la hadlayaa dhalinyarta youtuberada youtube-ka haysta, waa youtuberada. waxaan leeyahay dadkan idinkeedin daawado loomaba baahnaba, hadday wax kusoo darsadaan alxamdulilah. laakiin dhalinyartan youtube-ka inta badan kusoo jirtay ilaahay uu barakeeyey. nin youtube-ka wuxuu ka hela maamada wax sadaqa uga baxsanaya iyo nin jeebkiisa wax kaloo meel kale kasoo gala sadaqa uga baxsanaya. youtuberadu inay isku tagaan weeyaan, in wax la isku ego. ninkii gaar ugu diraya iyo ninkii doonaya in account inta loo furo siduu walaalkii liicaato ka dhawaajiyey accountkaa loogu wada shubayo, in hooyadaa la garab istaago. haddaan is idhahdo maanta dadka oo dhan youtube-ka isticmaala dhalinyarta weliba waaweyn de muddada ku jirta magaca kule baalka ma soo wada koobi karo. laakiin marka dhalinyarta liicaato oo kale, drisle cabdi oo kale, ck oo kale, nacam dhalinyar badan baa jirta. hablaha tiina faray oo kale, nacam waxaa jirta dhalinyar amoodin nacam inaanan kaasoo aanan ku garanayn oo kale haddii aanan magacaaga meeshan garayn. laakiin gebigiinaba magacyadiina ma wada sheegi karo. like jk oo kale, nacam waxaa jira dad waaweyn oo de noloshiina fahansan. marka dhalinyartiina waaweyn oo youtube-leyda intiina inaad ugu horeysaan ood u istaagtaan hooyadaas. weliba nin kastaa uu ka sheegay halkan wixii uu ku awoodo, ceeb ma aha. nacam istusnimona maaha qofku hadduu yidhahdo maanta hooyadaa waxaasaan ku caawinaya. marka waxaan jeclaan lahaa inaynu intaa youtuberada kii wax soo saaray kii aan wax soo saarinba uu garab istaago, uu u kaco oo hooyadaa aynu meel gaadhsiino. anuu shakhsiyan san hore idinku sheegay qof youtube-ka wax ka hela ma yihi, laakiin alxamdulilah sidayda kale waxay ga badan yihiin youtube-kana waxaan iska jeclaystay sportska inaan dhalinyarta la sheergareeyo. marka anoo aaga football show team ku hadlaya oo shakhsiyan iska hadlayo dadkay daawadaanba ciyaarahan la gudbiyo ee igu xidhan aanan la hadlayn oon lahayn wax ii soo ururiya. waxaan jeclay hooyadaa inaan ugu deeqo $300 oo aniga jeebkayga kasoo baxaya. dhalinyartiina kalena waxaan rajeynayaa in wax laysku gegeeyo oo nin kasta intuu meesha soo fadhiisto, weliba dhalinyarta waaweyn, uu idhaahdo war hooyadaa waxaasaan ku deeqay. marka halkan waxaan kala challenge, weliba waxaan jeclaan lahaa challenge ayaa fiican inuu qofba qof u gudbiyo, qofba qof ay isku sii fiican yihiin. anuu qoladaa youtuberleyda hal qof baan hal maalin ka wada hadalnay oo haddaan isbaranay maasha allah, waa liicaato. dhalinyarta kale aqoon shakhsiyan iskuma lihin. marka anuu xaggan waxaan challenge uga dirayaa dhalinyarta kow liicaato, ku xigo ck, uu ku xigo drisle cabdi, dhalinyarta saddexdaa. marka ninba saddexa ugu sii gudbiyo, saasaynu iskugu gudbin karaynaa inay hooyadaa caawiyaan, ay video kasoo duubaan, uu qof kastaa sheego wixii uu ku awoodo inuu hooyadaa ku caawinayo. marka insha allah waxaan rajeynayaa inaynu meel fiican ka gaadhsiino, inaynu daba taagnaano. hooyaduna maaha hooyooyin badan iyo dad badan oo dhibaataysan. war youtube-ka wixii aad ka heshaan de wax kasta sadaqay leedahay, sadaqadeeda aynu baxsano bal barnaamij isku xidhan iyo wixii la samayn karayo halala garab istaaga ciddii garab istaagaysa. intaasaan jeclaystay inaan maanta la sheergareeyo walaalada oo weliba dhalinyarta youtube-leyda. walaashaana waxaan leeyahay youtube-ka walaal waan kuula garab istaagaynaa. I hope inaad dhalinyar badan oo subscribe ku siisa aad hesho. I hope inaad fikrado badan hayso soo diri karto. laakiin maha wax si sahla wala lacag markiiba looga sameeyo oo maanta lacag kama samayn kartid, beritoole iyo saa dambana kama samayn kartid. time bay qaadataa. adoo kaagaa dhinaca ka wada walaal wixii sidaa uu walaalkeen sheegay uu yidhi youtube-ka waxaad u samaysataa inaad nolol maalmeedkaaga wixii kugu soo kordhay kolba xaaladaadu halkay marayso aad ku soo gudbiso ayaad u samayn kartaa. dan insha allah mustaqbalka waad gaari doontaa halkii aad wax lacag kaga heli lahayd. tala ahaan fikradahaagana waxaabaad kusoo koobi kartaa ambaad u badin kartaa
si adiga nafsiyan walaalada ku caawiyo ku garab istaagay ay baahida kaaga tireen adiguna walaalada baahan ee Britole wax u baahan inaad barnaamijyo ka soo samayso si barnaamijkaaguna barnaamij dadku xiiseeyaan u noqdo loona daawan karo adiguna waxaad ugu hesho ummadda dhibaataysan ee agtaada joogtana aad wax ugu ururin karto marka insha Allah waaga football show oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh